munaasabadan loogu soo xiriiriyay tababar u socday muddo 6 bil ah 385 ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo laga kala keenay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya kaasi oo ay ku baranayeen casharo la xiriira shuruucda booliiska ayaa lagu soo gabagabeeyay dugsiga tababarka booliiska Jaraalkaahiye ee magaalada Muqdisho waxaana loogu talagalay in ay wax ka qabtaan arrimaha amniga deegaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa munaasabada ka soo qayb galay wasiiro saraakiil taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ciidanka tababarka loogu soo xidhay iyo marti sharaf kale taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed ayaa ka hadlay ahmiyadda tababarkan u leeyahay ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu hadda marayaa marxalad la yiraahdo dib u habayn ama reform dib u habaynta ciidanka lagu sameeyaa maxay tahay ciidanka waxa lagu sameeyaa isla xisaabtan dhaba oo la rabo in la ogaado askari waliba mushaharka uu qaatay inuu helo lacagta loogu talagalayna inay si daahfuran oo booliisku leeyahay ee dawladda federaalku siiso qof walba meeshiisa ku gaadho iyo wixii loogu talagalay waad ka warqabtaan askari walba mushaharkiisa meel buu ugu soo dhacaa waxa la mid ah raashinkooda waxa la mid ah gaadiidka kulli in laga dhigo meel daahfuran oo maamulkaas cid walba uu arkayo electronic noqon doona ayaa transformationkaas uu ciidanka ku jira waxa kaloo ciidanka laga bedelayaa qaabka maamulka u shaqeeya qaabkay u shaqeeyaan waxa la rabaa askari walba oo saldhig jooga saaka wuxuu qabtay iyo meeshuu ku sugan yahay in lala socdo madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis Maxamed Laftagareen ayaa ku guubaabiyay ciidanka tababarka loo soo xiray inay ka shaqeeyaan amniga aynu u adeegaan bulshada Soomaaliyeed sharaf weyn inoo tahay waxaan rabaa inaan ciidanka iraaha hambaliyo mar labaad hambaliyo runtii nasiib badan baa leedihiin waqti baa la soo geliyay dawlad baa hesheen kaalmo caalami ah hesheen tababar fiican baa hesheen wax aysan ciidamada in ka horreeyo booliiska ahaa oo Soomaaliyeed oo dawlad goboleedyada iyo deegaanada loo tababaray aysan helin yaad hesheen oo nasiib u hesheen oo maxay tahay in la inku tababaro akademiyada booliiska Jaraalkaahiye oo dalkiina ku tababarataan wasiir dawlaha wasaaradda amniga Soomaaliya ayaa kula dardaarmay ciidanka inay ka shaqeeyaan sidii amniga deegaanada Koonfur Galbeed ay u soo celin lahaayeen hadii ayaga ahayn maanta meeshan isku imaan lahayn midda kale markii la fiirsho dhalinyarada la qalday aan dhigi kara aniga ma dhigi karo wax kale anaga aan dhalnay nala dhashay guryaheena joogo wiilasheena dhibka ay dadka ku haayaan kuwii naga celin lahaa ama ka hortagi lahaa ama dhinac kasta waa kuwa hadda noo bilowday kuwa kalena waa rajeynayna inay noo imaadaan aan ku nasano aan ku jiifano waxaa u malaynaysaa South West dhibka ugu weyn Soomaaliya ayagu haystaa waxa ay haystana waa dadkoodii gobolada kale marka aragtid degmooyinka kale waa la isu socdaa annagana heer waxaan gaarnay 50 kilomitir diyaarad inaan ku tagno 26 kilomitir afgoyn aan tagi laanahay Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.